nuur asaa lugihiisii igu yimid. nuur wuxuu u yidhi horseed waa noo kala dhammaatay waqtigaana ka warnaan dhahay. wuxuu yidhi 19 bisha oo waqtigii ku ogyahay bisha 12aad 19keeda midna ku raacsiyaha nuur hadduu nool yahay anigana aan noolahay adna aan nooshahay bahda isboortiga oo xalay aan ka seexan waayo oo dal iyo dibadda soo cayn ay nool yihiin nuur waa hadli doonaa. marka saxiixa oo laga saxiixay ciyaartooyda kale ay kooxaha kale ka saxiixdeen wuxuu dhaqangal ku naqaayo oo kii dhaqangal ku naqayn hadday dhacdo waa burburka maanta xiriirka haysto nimayna aabba leedahay. ninkay aabba leedahay asagana waa ogyahay anna waa ogyahay bahda isboortigana ogtahay. sababtoo xafiis xiran in la waco la yidhaha fur iridda la furo maxaa xasuusantaas ilmi lagu ogolaan waayo. aniga markaan ciyaartooy soo wadaan dhab lagu ogolaan waayo. annaka ciyaalka youtube-ka u furaya maaha nuur asaa hadli waayo asaa dhaha horseed waqti fiican isa soo qaadan raalli ahaado. xiriirka Soomaaliya kubadda cagta in ayaga ay isqabsadeen laba qayb ay yihiin. annaga ka naadi ahaan dhexdhexaadan ahayn labada shir aan tagna male. sababto waxaa nooga muuqatay burburka isboortiga Soomaaliya nooga muuqdo. sidaas awgeed waxaa dhacday inaan la xiriiray maxamed cali ninka la dhahayo iyo yaxye ayow. waxay ii sheegeen xafiiska in laysku gacan qaaday oo la xiray. maxamed cali afkiisa iga sheegay aan dhaa ciyaartooyan soo wadaa waa 25 maalmood ka hor wuxuu xafiiska waa xiran yahay waayaan dhahay. waxaan arkay naadiga waxaa u qoran xeer hoosaad uu leeyahay saxiix oo waxaa jiro ay kooxaha samaysteen oo ah nin kasto inuu xaruntiisa uu ku samaysto uu saxiix ku sameeyo. kooxda ilmanaaj ka mida xasan santos annaka ciyaartooydeenii yaan wacnay nuur asaa lugihiisii igu yimid. nuur wuxuu u yidhi horseed waa noo kala dhammaatay waqtigaana ka warnaan dhahay. wuxuu yidhi 19 bisha oo waqtigii ku ogyahay bisha 12aad 19keeda waxaan hayaa qoraallo nuur gacantiisa uu kusoo qoray uu lahayo iga dedeji adeer arrintan. nuur nin maale ila soo xiriirsiyey oo dalaal ah oo hadda mar rabo magaciisa inaan sheego sababtoo isboortiga si xumaado waayo waxba markuu heynaa oo isboortiga oo wax ku ah cilad ku ah. marka ninkaas wuxuu soo xiriirsiyay waayahay bal ii keen ii wada imaada oo ii wada yimideen waa wada hadalnay. mar kale nuur gooni u ballanay waa wada hadalnay. ugu dambeyntii wuxuu iga deji waxaan dhamaaday ku-xigeenka iga maqan ha yimaado waa yimid asaa isoo waca nuur ama wiciraw isoo wacay haddaan kusoo wicir baan dhahay wuxuu yidhi iga deji ay beri diyaar ihaa baan dhahay beri ma arrintaada waa yimid. nuur waa yimid nuur waa hadlay maqal iyo muuqaal u hadlay. nuur naadigii aan usoo dheelay oo 2 sano la soo joogay nasiib wacan uu leeyahay. saacaddan laga bilaabo waxaa naadiga dekada nuur qof khasbimayn qof qora ku haysana ma jirin. nuur laakiin waa iska nin dhallinyaraa oo nin hadda aad u yar waayo. midna waa ku raacsiyaha nuur hadduu nool yahay anigana aan noolahay adna aan nooshahay bahda isboortiga oo xalay aan ka seexan waayo oo dal iyo dibadda soo cayn ay nool yihiin nuur waa hadli doonaa. maalintaas al-ogaha waxa maanta ku dhaho maalintaas al-ogaha waxaa la rabaa inay arkiibiga ku ahaato. Soomaaliya wadankan muddo badan burburna waa geliyey arkiibiga horena waa baabaaday wax badan arkiibiga badan aan hayaa aniga. marka tan inay arkiibiga noogu jirto waa rabaa. nuur waqtigiisa waa dhammaaday. xeerka xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta u qoran waxa waaye ciyaaryahanka 3 bilood 9 maalmood markuu ka dhiman yahay waqtigiisa heshiiska hore uu geli karaa. iska dhaaf kan waqtigiisa waa dhammaaday bishii 19 bisha 12 u dhammaaday 13 beri ilaa 14 beri 15 beri ee horseed jaanis haysatay si gunaag jaaniska waa ka faa'iideystay waa ka seexday. marka
saxiixa oo laga saxiixay ciyaartooyda kale ay kooxaha kale ka saxiixdeen wuxuu dhaqangal ku naqaayo oo kii dhaqangal ku naqayn hadday dhacdo waa burburka maanta xiriirka haysto nimayna aabba leedahay ninkay aabba leedahay asagana waa ogyahay anna waa ogyahay baad isboortigana ogtahay sababtoo xafiis xiran in la waco la yidhaha fur iridda la furo maxaa xasuusantas cilmi lagu ogolaa waayo aniga markaan ciyaartooyda soo wadaan maxaa lagu ogolaa waayo meeshaas waxa waaye burburka ka socdo meesha hadda la ishaysta waa waxa la isku haystay u badanta tano kale waayo tani se fudud ma ku dhammaahayso hadduu u maleeyo fudud inuu ku dhammaahayso saaxiibkay doctoorka fudud ma ku dhammaahayso xeerka aan la kala saaraayo ilaa heer maxkamadeedaan la tegaynaa anaka waxayna cid aan uga aabiyeynayna male cunugaas nin yar waaye aniga waalidkiisaan ahay adeerkiisaan ahay isboorti ahaanaan adeerkiisa u ahay waxaa isu keenay aniga isaga oo qabiilkayna ah waa isboorti macal doctoorka qabiilkayna waa isboorti macal kuwa xiriir ka shaqeeya qabiilkayna waa isboorti qabiil kale oon leenaha male waxaa la rabaa in xeerka la ilaaliyaa la rabaa iyo institutionkii la qortay in la ilaaliya rabaa annaka ka naadi deked ahaan waxaan fasaxnay tiam dhanbaan fasaxnay kasoo bilow ka hor cabdullaahi faarax ilaa xilli cabdullahi faarax uu joogo waxaa kamida guulhaya saciid waxaa kamida guulhaya kamaaliy waxaa kamida homey waxaa kamida shaarkey waxaa kamida higu xaali nin dhahayo waa ciyaartooydii hore saciid yamani qubaaye sakariya tawfiiq cabdullaahi cali bile caaqilka macaani faysal dadka aan aada ugu jecel ku jiraa faysal xasan afgooye sayga ruushka awli wiilkayga si kaliir ah aan wada hadlanay isaga wuxuu yiri warqadeyda waxaan rabaa inay naadiga ka aag bedesho saacadan laga bilaabo fasaxataan tahay 3 maalin oo dhinay qorshaha noo qoran xeerka noo qoran ma ku jirto inaan ka ciyaartooy cadaadino waa iska dirnay maalinta jidka soo xabadka isgelinayna wiil iyo waalidana inta naadiga ka tagtay waayo kulli cabdullaahi cali bile xasan afgooye dhammaan laakiin waxaa dhibaataa nin waqtigiisii dhamaaday ee meediyaha fariistay ee saxiix laga haayo soo saxiixayo ee asoo hadlaayo laga haayo dhahaayo nasiib wacan in gurigiisa laga wato wax isboortiga ka baxsanaa meesha ka dhacay inaan ka hadlo ma rabo laakiin asaa ka hadli doono adduunyaan aqaana aniga meesi asaa ka hadli doono nin yar waayo waa u caga dhigaynaa taas waxaan rabaa inay meediyaha dhan u sheegay inay arkiibi iskugu jirto maalintaas kuwa taroorkaas waan yiraahdaa midda kale waxaan kuu sheegaa Soomaaliya 1970 horseed magacyo badan loo baashay mar waxaa loo baashay independence iyo 12 October oo booliiska iyo xoogga la isku daray laba koox laga dhigay independence iyo 12 October hal laho independence waa maalinka xornimada waa kelmad Talyaaniga hoos lama dhihi karaa liin 12 October hoos lama dhihi karo waxaa loo baashay bikaal iyo dirir bikaal Saciid Ducaale hogaamay dirirna Ismaaciil Gelin la hogaamay waa socodweysay waa la isku daray hal sano u ciyaar Ismaaciil Gelin Allah naxariisto waa dhintay sanadkii ugu horreeyay magaca horseed diiru ciyaar markaasna ciyaaryahanka waxay ahayd hadduu saxiixo inay kooxda iska fasaxda maahan waqti uu ku xisaabtamay ma jirin waa cadaadi karta kooxda Ismaaciil wuxuu yiri ma u rabo horseed hadda markaas horseedan ma haya waa horseedii hore xukumayay Allah naxariistay Maxamed Cali Samatar iyo gudoomiyihii naadiga go'aanay qaateen ee fasaxay wala diray wuxuu u tagay kooxdii horseed ay lidii isku hayeen jeeyo ashar laga qoraa jiro oo ku sheegay waxaa la wareystay maanta waa dhintay xal waa raadshay arkiifiida soo raadshay
maanta inaan soo bandhigan aada u raadaay guddoomiye horseed u hadlaayo xilligaas oo dhahayo ismaaciil lama rabo yiri waa ciyaaryahan qaran waa ciyaaryahan soomaaliyeed ma rabno inaan baabi'ino waxaan awood u leenahay inaan kooxdaan u seexday waa joogi inaan dhahno balankiisa aan ku hayno laakiin waxaan diidnay inaan laacibkaas magaca weyn kule soomaaliya oo u yeertay Central Africa inaan baabi'ino diidnay saas aan u fasaxnay ee kooxdii aad ciladii isku eedeen oo jeeyay u tagaa leeyay dib ma laho laakiin baabi'inta Ismaaciil wax kasta oo wuxuu maanta Messi in la yiraahdo waxyaalo marjic inaan ka hadlo oo dhaceen aan ogahay aniga jiro marka inaan ka hadlo ma rabo laakiin asaa ka hadli doono hadduu nool lahay Messi ka hadli doono marka Ismaaciil la diray Ismaaciil Greenley Central Africa u yirtay horseed dirtay waa horseed oo horo waayo niman qaranka Soomaaliya dad laga magacaabi jiray waa ayaga laga magacaabi jiray direen maanta caadifadaas oo horseed iyo jeey dhaxtiil Ismaaciil Greenley ku aaday aniga iyo horseed inay dhaxtaalo dekadii horseed inay dhaxtaalo ma leeyahay ma jirto laakiin waa hadda waa la abuuray shakhsiga abuurna oo ogyahay waana maqlaa uu ixtiraam badan oo hayo aqoonyahan fiican oo yahay oo aqoontiis ay barbaraat ay tahay oo nin bisil oo yahay laakiin laga eray ay ummadda Soomaalida maanta ay weydiisaa maalinka shalay oo labadaas eray horseed lagama dhinto horseed waa lagu dhintaa maayna lagama tago isboortiga waa caafimaad kelmadaas laakiin dad badan ka xanuunsan oo dalka iyo gudaha joogaan oo kuwa isboortiga maanta ku dhex jiro iyo kuwa horay u soo shaqeeyay ama xiriirada ka soo shaqeeyeen ama kubad cad soo dhiin ama hal isoo weydiiyeen kelmadaas fasiraadi u baahan tahay wallahi ninkii ka soo yirta la weydiiyana taas aniga shaqo ku mari kelmada kale oo aniga aan aad ila hadda u yaabanahay nuur saafkiisa ka hadlay دكتور محمد صاحبكي حشمت إكرام بدنا وهاي وعوري برانكي وعوري أنا كعيالك يوتيوب كفرية معه نور أساعد له هاي أساعد لا ورسيد وقت في عنا سوق أنا رهلا عاو أنا مجرين إذا عليها أساعد كل شيء نور أفكيسه وكل شيء لما قصبي هندد إيه محمد مين نور ساس إيه قلم كتاب بركنسي اللي هذا وقبا وأوهي ما أنت تقول ما هذا المديك ويحشوها والنير هل كلمة رحمن المقبل ما كلمة حرنا الله لقى مياه وأمور الكيس وحول ميس إن اللي سمعنا لكن عياري هذا هردينا كرمين يعني لقصب عطوا الصومالي يملكوا في عواه والنجتري نكان وبحه وعبد الله فرح فسعنا الله ويانا غادني والنسون نقي وانو يمد هريرك لا قاday Abdullahi meesha ka tagay wuxuu yiri bes naadiga way garmaatay ma lagu dhibaanaa waqti u dhinaay hal sano iyo shan bil u dhinaay warqadiisaasi Soomaaliya ninku u fiican way atosh maanta qadka dhexe wiilkii oo adeerkay xusmad iqdina sheeyna maanta naadiga inta ka tagto dhan oo ku soo sheegay hadii naadiga ku soo noqon ilahan gacmo furna ku soo dhaweeyaa sababtoo ah waxaan ku kala tagnay walaaga ku kala tagnay yuuji fiican laakiin nin adiga aad qofkii aan dhibaataysid biri walaal ku soo naqa xogaa isboortiga dhibaatada laga dhaafo qolada ka shaqeyso isboortiga waxa uu sheegaa oo kula dardaarma caadifadii idin qaadin isboortigu waa hal magac waa hal qabiil kan dheelo kan garsooro kan maamulo kan macalinka kooxda ka kan ciyaartooyga waa isboorti qabiilkayna waa isboorti laakiin waxyaalaha hadda socdo waxay aabba leedahay dadka meesha ugu sareeyo meesha hadda isboorti uu joogay ayagaa geeyeen Soomaalidana way ogtahay anna waa ogahay waxaan rabaa in laga dhaafo isboortiga qoortiga dadka buu leeyahay la laqdo wiilkan yarne waa niyar waa laacib mustaqbalka Soomaaliya anfacayo cidda uu dhiiro yaa problem la gelin in maskaxdiisa yartaa waaye ninka markay yartaan in loo garaabay u baahan tahay hadii wax oo ka baxsan isboortiga lagu dhaqmo
xoogaa waa aniga waa kelmad aad ii dhibayso isboortiga caafimaad waay ani caafimaad inaan ka hela ugu dhex jiraa laakiin waxa dhici waayo xanuun igu beerayaan dad badan xanuun ku beerayaan oo arki doontaa oo ku soo wici doonaan ayaa adka doontid dibadda joogaan rakaab tanlaha ku jiro waxa dhacay wax si u socdaan la yaaban war xafiis xiran asbaabta loo furay mii sheegi kartaa waa wax la yaab leh waxaas laakiin waa waxaan socoyn nuur qof qasbiisa marba ku ii siixay kan oo ayna siixday waa ansax ay ku siixday xafiiskeedana kan dekada ansax ma aha cunugiyaa la wadaa xaggaa la geysaa ansax miya ninka ansixi doonaan ka rabaa oo xiriirka madaxda ka ah inuu ansixiyo taas naka meel aan ugu harayno nuur male nuur juhdi badan oo nagu baxshay waa ubal gudaynaa juhdigiisii gedgaami gedeen u koraynaa si sharciyaan kula soo ceshaynaa xeerka xiriirkaan noola raaca daraadaan ka sii yahay shalow ka siixda asagana wasaaradda gaashaandhig ina geystay laakiin xeerka xiriirkaana kala saaraayo nuur 19 bisha 12 oo fasax ahay